fiqiga shaaficiyada majliskan qumbulan ridaya qumbulada waxay tahay culimadii aniga iga horeysay cilmigan soo gaarsiisay gaar ahaan ahlu sahwa sheekh xasan cabdisalaam iyo ay ka waramayay akhtau wa asaabu waxay ku khaldameen markii ay fiqigii madhabiga ahaa la mooday waliba waxa laga yaabaa sheekh xasan in laga sii xigto tayaarka salafiga la yiraahdaa inuu ugu badnaa cidda hujuumka ku qaaday ee waxa la yiraahdo la madhabiga umada u jideysay qofkii in lagu sii dhexdaayo la yiraahdo adiga imaam shaafici labadiinuba nusuusta kitaabka iyo sunnada fiqiga toos baad uga fahmi kartaan uga fahma arrinkaasi arrin qalad marxaliyo la soo maray buu ahaa culimada qaarkood sida sheekh Yahya al-Yahya oo sheekhida kamida wuxuu tilmaamay arrinka la madhabiga ah Allahu a'lam wal-'uhdatu alayhi inuu dabada ka riixay isticmaalkii ingiriisku ujeedaduna ay ahayd tajhiil ummadda in ay jahli isugu baxdo sheekh anigu waan ka maqlay laakiin ma garanayo masdarkiisa iyo meesha uu ka keenay laakiin waxay ku saxsanaayeen تعظيم النصوص تعظيم الكتاب والسنة خاصة حديث النبي وحجته وكتاب كي السنة يجمع أمته إيا قياس كيسة إن مركا لقهر مريو كتاب نصوص تيو تعالى قول الشيخ لقهر مريا ينوى جريمة وي وشيخاني خاصة هدي أي عداتي وعلماء كالعديين إنه كو خلدمي مسألة ده إن إساقي للتقديسيون نسكي للتقديسين وايو taasna waa qalad laakiin way ku saxsanaayeen inay arrinka baraarujiyaan imika lafteeda waxaan ka baqayaa thawradan quruxda badan ee noo kacday inay iyaguna ku dhacaan akhtau wa asaabu in fiqigii markii hore cusuufka laga sameeyay in inta imika lagu soo noqdo haddana kuwa uu sheekhu ka sheekaynayay faradiyaadka jadaliga ah in waxa weeye halka lagu noqdo laakiin waxaan aad ugu kalsoonahay walaalkay doctor khadar iyo ragga la midka ah ee fiqiga inoo soo xambaaray inay insha Allah taala ay bari ka yihiin ardaydoodana ay ku tarbiyadeyn doonaan تعظيم النصوص iyo in la weyneeyo oo aan la noqon sidii sheekh maalin masalan ka dhageystay ragga fuqahada waaweyn xanaabilada ah ayaa wuxuu tilmaamayay siiqa isticaadada marka salaada la galayo markaasuu wuxuu tilmaamay naska ku soo arooray siiqa ugu saxsan ee isticaadada markaasuu walakin almurajjah ma qala shaa'iruna markaasuu gabayirtiri yani xitaa haddii ay tarjiixta inuu sida u muqaaraneeyo xogaa quluwi baa ku jira marka inaan dhinaca kale haddaan loo taraarin ee wasadka la taagnaado taas waa qodobo baraaruj